hay-adda maxalliga ee Soofe ee ka howlgasha magaalada Burco ayaa habeennimadii xalay soo qaban qaabisay munaasabad lagu wacyigelinayo sidii looga hortagi lahaa xanuunka Ebola oo dhibaato xooggan ku haya adduunka oo dhan. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee cusbitaalka magaalada Burco Dr. Xagar, ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday, taliyaha qaybta Bilayska Cabdilaahi Muuse, dhakhaatiir iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Munaasabadan ayaa waxaa ugu horreyntiiba daahfuray gudoomiyaha hay'adda Soofa Cabdiraxmaan Aadan kaasi oo ka warbixiyay hay'adani iyo waqtigii la aasaasay, waxaana hadaladiisii ka mid ah intaan imika ka warqabno waxa uu qarxay Maarch ilaa haddana waxa uu ku dhacay tirada la hayo in ka badan 9,000 oo qof, waxa uu dilay ku dhawaad 450 sida 4,500 qof in ka badan. taa macnaheedu waxa weeyaan boqolkii qof ee uu ku dhacay cudurka Ebola waxa uu dilay 60 ka mid ah. weliba dalalka uu ku dhacay waa dalal dawlad ahaan dhisan, caafimaad ahaan dhisan, qalab ahaan dhisan, sidoo kalena ay aad ugu adeegayaan dalalka maanta sheeganaya inay ku dhifloobeen xagga caafimaadka. marka la barbar dhigo maanta dalkeena aynu joogno sida runtii awoodiisa caafimaad oo iska kooban tahay, waxa kaliya ee cudurka Ebola ay u muuqataa inaynu kaga hortagi karayno inagoo bulshadeena yar iyo weyn xaafad qof uga wacyigelina isla markaana barna calaamadaha uu leeyahay iyo sida loo isaga ilaalin karayo. maanta sidoo kalena munaasabadani lagu wacyigelinayo sida la isaga ilaalin lahaa xanuunka Ebola ayaa waxay ku soo bandhigeen warbixin ku saabsan xanuunka Ebola, sida la isaga ilaalin karo iyo sida loola dagaalami karo ama loo yareyn karo faafitaankiisa. Ebola virus hataa wan ama hamayeen hanadu kale qof meega hadii uu Ebola u dhintay gacmaha isku mar ameeyeen jeerka iyo taataabashadiisa waa iska ilaalinaysa qofka isla Ebola. calaamadaha lagu garanayo Ebola virus, calaamadaha ugu horeeya qofka lagu arkayo muddada u dhaxaysa 2 cisho ilaa 21 cisho qofku cudurku haleelo waxay noqonaysaa fever, xumad, tabcaan ama qof caajiza, madax xanuun, nausea iyo laaligo ayuu qofku isku arkayaa. inta ugu horeysa waa xanuunkani asiibo. calaamadaha dambe kadib lagu arkayo waa vomiting, wada nuqaaco wadata dhiig oo qofkii markuu nuqaacaba uu haddana dhiig nuqaacayo. ugu dambeyntiina waxaa munaasabadani ka hadlay agaasimaha guud ee cusbitaalka magaalada Burco Dr. Xagar iyo Dr. Maxamed Xamuud iyo ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday, kuwaasi oo ku guubaabiyay dhalinyarada ku midowday hay'adda wadaniga ah ee Soofa inay halkaasi ka sii wadaan dadaalka ay ugu jiraan bulshadooda, waxaana hadaladoodii ka mid ah si loo fudud buu loogu iman karaa waxna oo la ogtihiin maanta in dadkeen socod ku jiro ama Yurub ha u tahriibo ama South Africa ha u tahriibo ama meel kale ha u tahriibo. kaas waxa suuragal ah inuu si sahlan hadhow ku soo noqdo isagoo xanuunka xambaarsan. xanuunkan sababtoo ku jira way meelaha jilicsan oo dhan masanka ha noqdo ama afka noqdo xuubka jilicsan, afka, sanka, caloosha, mindhicirada, waxaasoo dhan ayaa dib wuxuu ka imanaya marka uu qofku u sahlan inuu waxyeelada ugu dhinto. ardayda caafimaadka baratay qaybtii ugu muhiimsanayd ee caafimaadka ilaaha public health qolada ka soo qaybgelisay xafladda soo qabanqaabisay kulli toole iyaga fikradda iska lahaa. waxay yeelay aniga amaali waxay yeelay fikraddan keenay oo waxay dhalinyarada garatay inay markiiba halka ay ugu nugulahay dadka ka baraarujiya. Maxamed Saciid Gaxnug TV caalamiga ee Soomaali Sat magaalada Burco.